maareeyaha guud ee dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi ayaa waxa uu ka warbixiyay dhoofka xoolaha oo ka bilaabmay dekeda weyn ee magaalada Berbera waxaana habeennimadii xalay dekeda ka dhoofay 3400 oo geela waxaana maareeyuhu sheegay in shaqaalaha dekeda weyn ee magaalada Berbera ay si weyn uga hawlan yihiin sidii ay u fududeyn lahaayeen sidii ay xooluhu uga dhoofi lahaayeen dekeda Berbera waxaana yiri waxaan dhoofinaynaa geeligu faraha badnaa insha Allah ee dekeda ka baxa sida tiradiisaba hore loo sheegay taasoo runtii aanu fulinayno siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo wasaaradda xanaanada xoolaha annaguna aanu qabanayno service-kii caadiga ah ee dekeda oo aanu mar walba diyaar u nahay 24 saacadoodba inaanu hawl maalmeedkii caadiga ah gudanno awoodna aanu leenahay xoolaha ugu badan inaanu ka dhoofin karno dekeda Berbera mankaaniyaadkeeda iyo qalabkeeda inaanu haysano taasina waxay tusaysaa caawa in geela oo ah xoolaha ugu adag ee la saaro maraakiibta inaanu sida ugu dhaxsaha badan u saarayna alxamdulillaah rabbil caalamiin laba habeen buu marayaa xalay 700 baa la saaray caawana waxa la saarayaa 2721 haddii alla yidhaa waxaan aad ugu hambaleynayaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi suuqyada cusub ay u raadinaysa mar walba ganacsatada Somaliland oo aynaan ugu koobnayn suuqa qaar ka mid ah shaqaalaha dekeda ayaa waxay soo dhaweeyeen xoolahani ka dhoofaya dekeda weyn ee magaalada Berbera cabsi waxaanu ka qabnay markii hore in ay yaraan doonaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka laakiin ilaahay mahadii way sii kordheen xoolaha iyo suuqa cusub ee ugu soo furnay geela dalka Masar suuqaas soo furay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland العمل المسير إن شاء الله يسوق بدنا كله سعودي وما كله بدنا حولها أو شهر يكون بدنا إن شاء الله عيان كل شغالنا يضوان وماميرتيسا أدوهر قلنا إنه أنتي مدلي وحيلك اللي بدأ سندود هينا هرمر بلارن وكسمي قبل كان ساحل كارهان مرسدن بربران سلاح هذا واحد نعاونه أو كيان كرني نجيله وقال له وانا تلاليه تلال الله قبا waxaan u gooshay u tagay Masar buu tagay waxa sidaadaraadeen ku sheegay geeyaha caafimaadkiisa wala huba waqeel caafimaad qaba oo xoolo laga shaqeeyay oo la soo talaalay baax Soomaaliyeed warasaabka gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan iyo xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Berbera Cabdikariin Aadan Cadde ayaa waxay maareeyaha dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi ay ku bogaadiyeen shaqada uu qaranka u hayo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in fursadaha dhaqan dhaqaale maartay iyo Charleska National Ilaahay inoo badiyo maareeyaha dekedaha Somaliland oo runtii ah nin firfircoon dekedana wax badan ku soo kordhiyay runtii gobolkana guud ahaan maxay tahay qaybtiisa ka qaatay waxaynu joognaa marsadii weyneed ee Berbera oo caawa runtii farxad weyn ay tahay oo ay ka dhaafayaan geelii ugu badnaa oo u baxaya dalka Masar oo hadda halan ka baxayo oo 3400 ku dhawaad tirada halkan maraysa ay tahay waxaanu filaynaa xoolihii kale insha Allah Sacuudiga noo furayna inay maxaan ku raraa dhowr maalmood gudahood iyaguna ay ku bixi doonaan Cabdirasaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka Badcas magaalada Berbera.